gaalkaayo. waddanka Cumaan ayaa deeq soo gaarsiiyay deegaamo hoos taga magaalada Jowhar waxaana loogu talagalay baa la yidhi deeqdan in la gaarsiiyo dad ka badan ilaa 1500 oo qof oo dadka saboolka ee ku dhaqan deegaamadaasi warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Ibrahim Cali Nuur. saldanada Cumaan ayaa deeq raashin u qaybisay dad danyar ah oo ku dhaqan tuulooyinka halgan ee Biyaxaaw oo hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. deeqda mucaawinada ayaa waxa loo qaybiyay oo ka faa'iideystay 1500 oo qoys. halka lagu qaybinayay deeqdaasi raashinka waxa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baari. qaybinta deeqda raashinka oo ku dhamaatay si nabadoon ayaa dadkii loo qaybiyay waxay u mahad celiyeen madaxda maamulka Hirshabelle iyo saldanada Cumaan. soo geerisay raashin oo finan oo aad u baahan ay soo geerisay aad oo mahadini aad aan soo kordhaynaa aad hay'adda Cumaan waxaan soo gaarsiisay wax kasto wixii markaas aniga oo bishan kasta dhiman oo ku dhameystiri karo waana cadeed khaasatan waa u baahaneen nolol keenay hay'adda Cumaan waxayna soo gaarsiisay saanka maanta in raashin kamil nasiis aan ku soo ku dhameysano. gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baari ayaa sheegay saldanada Cumaan inay kaga mahad celinayaan sida ay mas'uuliyadda isaga saaraan sanad waliba bisha barakeysan Ramadaan bulshada ku nool magaalada Jowhar iyo nawaaxigeeda inay soo gaarsiiyaan raashin. dowladda Cumaan ama saldanada Cumaan bil kasta soon ah sida noo anfuriso dadkana ay maanta ay aad ugu faraxsan jawi wanaagsan ay ku qaadanayeen waxay magaciisi markasta noo keenin jireen 2000 ilaa 2500 hadda waxaan meeshan ku bixinay sidaad arkaysiin 1500 oo laba tuulo aan kala siinay hadduu alla yiraahdo kuwa kale aan dhameystiri doono maalmaha soo socdo. dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa isna sheegay deeqda raashinka in loo qaybiyay dadkii mudnaa si nabadgelyo inay ku qaateen. waxaan rabnaa inaan halkaan ugu mahad celino saldanada Cumaan ee deeq raashin soo gaarsiiso dadka ku nool deegaanada Hirshabelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe bil kasta Ramadaan waa ugu mahad celinaynaa. soo qaadida hore la soo dhaafay waxay keeni jireen 2000 oo raashin ah 2000 oo qoys raashin ay ka faa'iideystaan ay keeni jireen sanadkan 2500 ay keeneen oo qoys raashinkii ku filan ayay keeneen. waa ugu mahad celinaynaa maantana waxa si degan oo nabadgelya noogu qaybsamay raashin loogu talagalay dadkan tabaalaysan labada tuulo ee kale ah Biyaxaaw iyo Halgan ilaa 1500 qoys ilaahay ayaa mahadaas iska leh si degan oo nabadgelyo ahayna ku qaateen raashinkoodii sidaad arkaysiin. waa ugu mahad celinaynaa insha Allah hadii raali ka noqdo waxa dhimana labada maalmood ayaan maaragtay meelihii nala daraado iyo dadkii nool liitaan iyagana gaarsiin doona hadii ay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin. sanad waliba marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan saldanada Cumaan ayaa dadka danyarta ee ku nool magaalada Jowhar iyo nawaaxigeeda waxay u qaybisay raashin ay ugu talagaleen inay kaga gudbaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Ibrahim Cali Nuur TV-ga Universal caasimadda Hirshabelle Jowhar. wali waxaad nagala socotaan